ogeysiis. Machadka Aljazeera waxa uu ogeysiinayaa bulshada in uu qabanayo dowlad diini ah oo loogu talagalay ardayda iskuulada inta lagu jiro 2 bilood ee fasaxa ah. Dowladan waxa ay ka kooban tahay 2 qaybood. Qaybta koobaad culuumta diinta waxay ardaydu ku qaadan doonaan maadooyinka kala ah tawxiidka, xadiidka, fiqhiga, siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo luqadda carabiga. qaybta labaad xifdinta qur'aanka kariimka ah. Ardaydu waxaa la qiimeyn doonaa heerkooda kadibna waxaa laga dhageysan doonaa arday kaste intii ay u jaangooyaan macallimiinta. Sidoo kaleeto waxay ardaydu qaadan doonaan mawaadda asaasiga ah ee tajwiidka sida kutubta kala ah tuxfatul atfaalka iyo hidaayatul mustafiidka. waxaa intaas u dheer oo ardaydu ay heli doonaan in carabka laga saxo oo tasxiix loo sameeyo. Ardaydu waxay heli doonaan oo machadka uu siin doonaa markii 2daas bilood ay dhammaystaan shahaado. Waqtiga ay soo gelayaan ardaydu waa 5 maalin laga bilaabo maalinka sabtida ah ilaa maalinka arbacada ah. waxay soo gelayaan saacadu markay tahay 2 saac ee subaxnimo ama 8 subaxnimo sida loo yaqaanabo. waxayna daraasadu ku eg tahay 6 saac iyo 50 salaada duhur inta aan la gelin. wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaan nambarka hoos ku xusan